sidee loo diraa sawirada iyo fiidiyoyada aadka u waaweyn adigoo isticmaalaya Gmail-kaaga mise waxaad weli u shaqeysaa qaabkii hore haddii aadan aqoonin isku xirka Gmail iyo Drive-ka halkan ka daawo sida 2026 wax loo qabto waxaan nahay Waran Cloud and Software Solution oo ka shaqeeya horumarinta ganacsiyada dalka tusaale marka Gmail-kaaga dhex joogtid oo aad furatid email aad diri rabtid waxa imaanaysaa meeshaas ay ku qoran tahay insert file using Drive meeshaas ayaa laga soo geliyaa linkiga Drive-ka aad diraysid ama sidoo kale haddaad linkiga soo koobiyeysatay halkan ayaa imaanaysaa ka bacdina best ku dhahaysaa soo hadda waxaan tusaaleynaynaa inaan mid kamid ah faylasha aan soo gelino waxaan dooranaynaa mid kamid ah fiidiyoyaasha ka bacdina add the link hadda saad aragtid waxaan noo soo galay linkiyadii aan soo doortay Google Drive-ka aan ka soo doortay sidoo kale markii email-ka la diraayo waxaa la soo geliyaa attachment file ayaa la soo geliyaa laakiin attachment file-kaas wuu xadidan yahay oo haddii tusaale qofka aad u dirtay email-ka aad rabtid inuu kaala shaqeeyo document ama wax aad u baahan tahay linkigaas inuu kaala shaqeeyo file-kaaga originalka ahaa wixii uu qofkaas ka bedelay kama bedelmayo marka aad attachment ku dirtid laakiin marka aad ku dirtid Drive file-ka aad ku dirtid wuu bedelmayo wax walba laga update gareeyay file-kaas originalkan uu ka update gareysmayo